وهجاج dhegeystayaal barnaamijka dooda jimcaha ayaynu horay u galeynayay arbacadii 19 bishan aynu ku jirnay December magaalada Baydhabo waxaa lagu doortay madaxweyne cusub oo maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu yeelanaya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaana loo doortay oo lagu sheegay inuu ahaa musharaxa ay wadatay dawladda federaalka guushiisa waxaa loo badinayaa inay sabab u ahayd markii meesha laga saaray Sheekh Mukhtaar Roobow oo dawladda ay markaasi ku qabatay magaalada Baydhabo diyaaradna lagu geeyay magaalada Muqdisho oo welina halkaasi uu ku xiran yahay doorashadu intii aanay dhicin xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo xataa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbaday in Mukhtaar Roobow la sii daayo loona ogolaado in doorashada uu ka qayb galo mana ay dhicin taasi rabshadihii ka dhacay Baydhabo ee la xiriiray xariga Roobow waxaa ku dhintay dad waxaana loo xirxiray dad badan guushii Lafta Gareen hambalyo iyo sacabtumid badan kama aanay jirin magaalada Baydhabo ee Muqdisho waxaana markaasi ay isugu soo ururtay aamus iyadoo doorashadii Koonfur Galbeed saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa maamul goboleedyada soo socda ee Puntland iyo Jubbaland ayaa kamid ah qodobada aanu eegi doono dooda arrimahaasi ku saabsanna waxaa marti noogu ah quburo ay ka mid yihiin Dr. Maxamed Nuur Gacal oo ka mid ah ururka cilmi baarista ee Talawadaag iyo Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo qabiir la fagura arrimaha Soomaaliya labadaba waxay toos u fadhiyaan stuudiyaha BBC-da magaalada Nairobi Dr. Axmed Cali Khayre oo ah qabiir qawaaniinta caalamiga oo ay ahayd inuu stuudiyaha ugu weheliyo laakiin sabanaanba xagga cimilada ku saabsan oo ka dhacayay afaafka hore ee dhismaha BBC-da ayuu ku xayirmay kadib markii ammaanka aad loo adkeeyay hase yeeshee waxaanu rajaynaynaa qadka telefoonka inuu uga qayb qaadan doono barnaamijka waad mahadsantihiin marka hore dhammaantiinba dhegeystayaasha ayaa iyaguna fikradahooda si cod iyo qoraalaba uga qayb qaadan doona barnaamijka aqyaarta soo dhawaada marka hore su'aasha ugu horeysa waxa ay noqon doontaa dhinacyadii ka horjeeday doorashadii Koonfur Galbeed markii natiijadu ay soo baxday oo madaxweyne cusub la doortay maxaa aamusiyay gudoomiyaha baarlamaanka Mursal oo dalbaday siideynta Roobow iyo in uu xaq u leeyahay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu ka qayb qaato beesha caalamku wax waraka ma soo saarin bulshada rayidka sidoo kale marka bal maxaa lagu fasiri karaa markaas natiijadaasi iyo dhinacyadii la rabay inay ka qayb qaataan oo aan ilaa hadda wax wada hadal ama markaasi aan warak ka soo saarin ugu horeyn waxa aan u baaqayaa Dr. Gacal stuudiyaha Nairobi بسم الله الرحمن الرحيم ومahadsan tahay aadan iyo adiga iyo bahda BBC-da iyo dhageystayaasha barnaamijkan su'aalahaas aad na weydiisay waxaan hore loo bartay ama la og yahay Soomaalidu markii ay tartamaan ama la galo olole doorasho qofka soo baxo inta badan waa la aqbalaa saas ayayna ku soo socotay waxaana lagu aqbalayaa mar hadday dhamaatay arrintii Soomaalidu ma taqaano inay ka daba tagto ama ay sii wado muxuu ahay ololaha marka labaadna xeer ayaa qabsanaya Soomaalida oo ay inta badan ixtiraamaan qofku markuu kursiga ku fadhiisto in lagu tixgeliyo oo loo daayo laakiin marka hore isjijiid iyo ay ka horeyso iska qabsi badan ay ka horeyso marka doorashadii Koonfur Galbeed dabcan markii uu soo baxay madaxweynaha hadda la doortay Cabdicasiis iyo markii ololuhu uu socday aad bay u kala duwanaayeen intii xataa ka soo horjeeday in badan oo kamidihii way u hambalyeeyeen in badan oo kamidihiina way taageereen midda labaad doorashooyinka gobolada sidoodaba markii laga reebo Puntland inta kaloo dhan waxay hadda ka hor ku dhismeen si qarba ah oo degdeg ah oo dadku aysan si degan aysan wax u dooran sidaas darteed ayaa mar walba waxaa ku jiray dadka in badan oo kamidihii inay mucaarad ku yihiin madaxweynaha labaad oo hadda la doortay kii ka horeeyay waan ognahay iyadoo la isku haysto South West ama Koonfur Galbeed 6 gobol laga dhigo iyo maye 3 laga dhigo ayaa degdeg waxaa lagu saaray madaxweynihii ka horeeyay sidaas darteed ma aysan jirin dadka reer Koonfur Galbeed damaashaad iyo dabaaldeg badan hore uma lahayn arrinta ku saabsan codsigii gudoomiyaha iyo Roobow oo ka maqnay doorashadana waxaan isleeyahay
waayahay waa kusoo laabanaya dr gacal qodobkaasi bal dr bulsaliid oo stuudiyaha kugu wehliyo ayaan isagana siinayaa aragtidiisa ku aadan isla su-aashii aan ku weydiiyey dr bulsaliid. bismillah aada umahadsan tahay saaxiibkay gacalna waan salaamayaa khayrana insha allah nagu soo biiri doona guud ahaan shacabweynaha soomaalida iyo bahda b b c da aynu wada dhegeysanayna waan salaama. intaas kadib sida aan ka wada warqabno dhammaanteenba siyaasadda soomaalida halbeeg laga cabir qaata ma lahan. baydhaban markaa fiirisid doorashadan tii ka horeysay iyo xataa nidaamka hadda soo baxayo lafta garen uu madaxda ka yahay iyo kii ka horeeyay shariif xasan markaad fiirisid sharciyad ma jirin asaas u ahaan lahayd in si sharci ah shariifka looga wareejiyo ciddii soo baxaysana ay ku soo baxday sida haddaba lafta garen ugu soo baxay. qodobka saddexaad asagana muhiimka aan saddex kale usii kala jabiya asagana waxaa weeyaan qaabkii xukuumadda federaalka jamhuuriyadda ay u maareysay faragelintii iyo taageeradii ay murashaxiinta qaarkood siisay qaarkood aysan u muujinin kala sheegashada xukuumadda inay sheeganaysa inay u baahantay jamhuuriyadda maadaama ayada loo doortay inay wax walba indhaha ku hayso gacantana geliso iyo maamulada inay biyo diideen oo ay leeyiin annaga dastuurra gaara leh doodii ka taagneed ka sokow qaabkii xukuumadda ay u maareyso aan fiicnayn. si kastabase markaad fiirisid cashar fiican ma aha oo hadda na tusaaleynaya in kismaayo lala aado ama garowe lala aado ama xataa maamulada kale ee muqdisho 2020 iyo wixii ka dambeeya lala aado. midda labaad waxaan aaminsanahay kow in aan isla fiirino bal waxa soo bixi doonoo kale inaan wada sugno inay aada muhiim u tahay oon aada loogu degdegin in hadda lalafa guro maadaama dad badan ay weli aamusan yihiin iyo ugu dambeyn inaan aaminsanahay in weli uu xal jiro oo wax un la dhoodhoobi karo hadda wax laga shaqayn karo marba haddii wixii ay dhaceen. waayahay dr bursid waa mahadsan tahay. dr gacal ma isleedahay sida loo maamulay doorashadaasi si ka habboon oo ka qurux badan ayaa loo maamuli karayay? horta mar kastaba way dhacdaa markii la rabo in tallaab la qaado in arrimaha farsamooyinku ay wax ka qaldamaan laakiin ujeeddada ugu weyne soo saaxiibkay bursaliid u sheegay ay dowladdu ka lahayd waxay ahayd maamulada oo u bartay markii hore keli daaqnimo iyo inay iska socdaan in la hoos keeno dowladda federaalka ama ay hoos yimaadaan. sidaas darteed ayaan waxaan arkaynaa doorashada cidda kaliyahoo ka soo qayb gashay waa markii koowaad dowladda soomaaliya golayaasheedu ay ka soo qayb galeen wasaaradda arrimaha guduhuna ayadu ay sharciyeysay ama ay aqoonsatay halkii berigii hore ay ka qaybgeli jireen ama ay imaan jireen wakhtigan oo kale loogu yeeri jiray. laakiin dr gacal haddii aan kaa dhex galo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka waxaa lagu eedeynayey in musharaxaasi iyadu ay wataan oo weliba ay ku taageereen dhaqaale iyo macnawiyaad kale marka dad badan baa sidaasi aaminsan. dadkaasi maxaad ku qancin kartaa? dadkaas waxaa laga yaabaa qaabkii horoo lagu dhisay maamulada ama ay ku shaqayn jireen iyo qaabka hadda dowladdu waddo oo kala duwan inaanay weli la qabsan ama laga yaabo inay u arkayaan faragelinta dowladda laga fasiranayo waxyaabo gobolaysiya ama waxyaabo qabiila waxaas laga fasirayo. laakiin hadda ayaa waxaa laga rabaa madaxweynaha la doortay inuu farqiga ku kala dhex jiro ama khilaafkiisa oo dhex maray xilligii ololihiisa inuu hadda baabi'iyo meesha ka saaro. dowladda federaalkana waxaa laga rabaa sida ay uga qayb qaadato hadda doorashada inay ka qayb qaadato in la xalliyo hadday odayaal dhaqan ahaan lahaayeen iyo hadday siyaasiyiin ahaan lahayeenba inay ka qayb qaadato dib u heshiisiinta iyo midnimada loo samaynayo dadka reer koonfur galbeed. sidoo kale inay la garab taagnaato taageero maadaama musharax ama madaxweyne ayaga taageersan ama dowladda federaalka taageersan la keenay waa inay kaalinteeda ka soo baxdo asaguna dhinaca kale waa inuu dhammeeyo khilaafaadkii iyo isqaqabsigii ka dhashay doorashadiisa. waaya taasi dr gacal waa in horey loo socdo oo wixii dhacay la iska iloobo laakiin qaabkii ay doorashada u dhacday yani maaragtay ma isleedahay waxay ahayd in qaab ka duwan ay u dhacdo marka la fiiriyeyso doorka dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay in haatan habka ay u dhacday doorashadaasi ay tahay mid ka duwan kuwii hore. door ahaan waa maxay qaanuuniyan marka aad bal eegto doorka ay dowladdu ku yeelan karto maamulada gobollada oo kale? aadanow annaga waxaan qiimeynaynaa meeshaan shala joognay iyo meesha maanta la joogo. shala waxaan joognay musharax kastoo ama dowladda federaalka
ama gobollada in la yidhaahdo ajnabiyaa wato in la yidhaahdo ajnabiyaa dhaqaale soo siiyey oo ku gelaya doorashada in la yidhaahdo muxuu ahay dadka lagu kaambeyn gareeyo ama ololaha loo adeegsado dowladda federaalkan idinka difaacaya waxaana idinku xirayaa beesha caalamka waa tahay laakiin hadda waxaa la leeyahay shalay ajnabi ayay taagneed laakiin maanta dowladda ayaa wadato iyo dowladda ayuu ka soo horjeedaa arrintaas maxaad leedahay waa lagu xallin karaa iyada laftirkeeda haddii laga soo gudbay marka dad badan waxay u arkayaan guul inay tahay oo hal tallaab hore loo soo qaaday cidda faragelinta laga sheeganayo hadda inay tahay soomaali iyo dowladdii federaalka aheed oo dalka dhan hoos imaanayay inay tahay cidda la leeyahay dhaqaalay keentay inay dowladdii tahay oy xaqba ku leeyihiin koonfur galbeed siyaabaha loo maamulay hadday wax ka khaldan yihiinna waa waxyaabo farsamooyin aan isleeyahay oo dib laga sixi karo laakiin ujeeddada iyo hadafka iyo aragtida hadda lagu sameeyey doorashadaas ama dowladdu ay ka laheed waxaa muuqato inay guulaysatay hadda kadibna aysan helaynin qiil aan lagu taageerin madaxweynaha koonfur galbeed iyo shacabka koonfur galbeedba waa tahay dabcan doctor axmed cali khayre ayaa nagu soo biiri doono oo dhinaca qaanuunka iyo wax badan noo ifin doono balse doctor bruselido markaad fiiriso xarigii musharax robow iyo doorashadii laga reebay ma isleedahay waxay ahayd hab waafaqsan qaabka qaanuunka doorashooyinka ee gobolada iyo markaas tiraa fiirisoba in dowlad goboleedyadu ay noqdaan kuwa iyagu dadkooda doorta waxyartii hore oo dastuuriyan aan ku noqday intaanan robow ka hadlin dastuurka markaa fiirisid ama midka kumeelgaarka oo heer qaran oo federaalka noo yaala ama xeer hoosaadada ay maamul goboleedyadu leeyihiin marka la fiiriyaba waxaa heshiis laga yahay dhammaantood in xukuumaddu aanay faragelin karin waxyaabaha ka socda maamul goboleedyada gudahooda ilaa iyo inta aanay wax qadiyad ku saabsan soo gaarin oo xuduud iyo arrimo dibadeed iyo maaliyad iyo gaashaandhig iyo wixii lamid a laakiin labadaba waxay isla qirayaan in qaab la tashi loo wada shaqeeya haddiiba wax fiican ay ka soo baxeen doorashooyinka baydhabana waxaa la dhihi karaa fariinta keliya waxay ahayd in xukuumadda maadaama waayadan maamul goboleedyadu ay madax adkaayeen in xukuumaddu ay cududeedii isticmaashay markaana ay dalka inay iyada ka talisa ay sheegatay laakiin hal in la halmaamo marna ma aha fariintaas loo dira maamul goboleedyada hanjabaadda akasukow xukuumadda iyo maamul goboleedyada bulshada rayidka axsaabta siyaasiga iyo qof kasta oo danaynaya jamhuuriyadda waa in maanka lagu hayaa in dalku u baahan yahay u turis inaan la isfaragelinin in wadahadal siyaasadeed iyo dib u heshiisiin degdega la galo dalkana loo tashado aan la isu cudad sheegin sidii maamul goboleedyadaba ay horay xukuumadda xoog ugu sheegteen haddana iyaduna ay bilowday inay isbarbar taagto meel iska saarto inaanay meelnana geynin aan usoo noqdo marka su-aashaadan saalamino mukhtaar robow qaabka ay wax noo soo gaareen loo qabtay ma ahayn qaab sharciyadda waafaqsan oo dee ciidanka xiray ciidan soomaaliyeed ma ahayn sida la sheegay xataa amisom way iska bariyeesho waxay tiri shaqo kumaanaan lahayn xarigiisa inuu sharci yahay inuusan sharci ahayn doctor khayran u dayn doonaa oo qawaaniinta caalamiga balfiiriya laakiin hal arrin waa muhiim weeyaan haddii soomaalidu ay gaartay heer isla xisaabtan dembiilayaal baa labada aqal ku jira kuwa madaxweyne gobolayaal noo ah kuwa madaxweyneyaal qaran soo noqday weli soomaalidu dad badan oo u eedaysan weliba faraq uu u dhexeeyo eedaysanaanta iyo dembiilanimada weliba uu yahay faraq aad u weyn haddana dad badan baa noo jooga dalkana wuxuu joogaa xilli dib u heshiisina xilli qof gaara toos lagu faydo ma jirto xukuumaddana waxaan aaminsanahay sida haddaba doorashadan si ka fiican ay u qaban kartay mukhtaarna si ka habboon siday waxyeeshay inay ula tacaamuli kartay wakhti badanna waan aaminsanahay inay isa siiyeen ayaga iyo isagaba ay ku wada hadlaan meel uun in madax adaygu ka soo jeeday doctor bruselid markaad fiiriso doorashadaasi sida ay u dhacday iyo qalalaasihii hareeyey iyo natiijada ka soo baxday ma isleedahay reer koonfur galbeed wixii ay ku haminayeen ayay heleen oo natiija oo halkaasi ka soo baxay wal uma malaynaysaan horeyba u idhi halbeeg siyaasadeed hadda aan ka cabir qaadano maba yaala meesha waxa kale oo reer baydhaba hadda aanay wax badan u hadli karin oo xaq badanoo hadda ay ku doodi lahaayeen inuu ka maqan yahay aanay u sheegan karin waxaa weeyaan nin kalaa is-u qabay inuu ka caqli badan yahay dadkao dhan oo xoog ku haystay marka haddii nin kale oo asna sheeganaya inuu dad ka caqli badan yahay uu xoog ku qabsado inay iska aqbalaan way ku khasbanaan doonaan ilaa dadka soomaalida ay u baxaan in la wada hadlo oo dib u heshiisiin dhabaho siyaasadeed la wada galo oo wixii la isla rabo laga wada shaqeeyo ay dadku meel ka wada noqdaan
laakiin qaabkii xukuumadda ay u maaraysay ma ahayn qaab dastuurkana ku bannaan xeerka soomaaligana ku bannaan xataa mustaqbalkeenna siyaasadeed sii kala caddayn kara oo ay soomaalidu ku tashan karto in garowan aan la faragelin doonin kismaayo aan la farangelin xataa shaki ka jira 2020 qaabka doorashooyinku u dhici doonaan haddiiba baydhabo la arkisay wax noqdeen. dr basaliid iyo dr gacal aad ba mahadsantihiin. halkani waa b b c, barnaamijkuna waa dooda jimcaha oo maanta aanu ku eegayno natiijadii ka soo baxday doorashada madaxtinimada ee koonfur galbeed oo weliba qubaradu ay si weyn u lafagurayaan. bal markana aanu eegno dhegeystayaasha ra'yigooda oo si coda noogu soo dhiibtay. عليكم بي بي سي وبشكا عبد الحسن فارق oo jooga magaalada Muqdisho hadaa ra'yi ka dhido barnaamijka dood jimcaha run ahaantii in qaabkii in dowladda Soomaaliya uga qayb qaadatay doorashadii in ka dhacday koonfur galbeed ma ahan mid qurux badan waxayna ila tahay in dowladda wax badan ay ka bedesho in qaababka ay u taakuleynayso ama ay uga qayb qaadan doonto doorashooyinka soo socda ee maamul federaaliyada waxaana muhiim ah in dowladdu ay aad u madax banaaneyso in doorashooyinka ka dhacaya ee maamul goboleedyada si ay u dhacdo in doorasho xalaal ah oo shaq badan ku jirin laakiin midda in baydhabo ka dhacdo waxay la tahay in shacabka in bay iyo bakool aysan weli si wanaagsan ugu qanacsaneen. asalaamu calaykum b b c magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig oo jooga Caabud Waaq. runtii doorashadaas dad badan kuma ay qanacsanayn oo waxaad moodaa runtii in lagu xaglinayo dowladdu inay nin maqaar saar wadato oo iyadoo ay soo maartay keensatay marka runtii waxaa fiicnaan lahayd dadku waxay xor u yihiin ayagu oo ay soo doortaan ay ku kalsoon yihiin in ay meeshaas laga soo doorto ayaa wanaagsanaan lahayd. marka waxaad moodaa dadka reer koonfur galbeed in sida ayaguba ay u arkaan la afduubay oo runtii aan lagu qasbay wax maartay aysan ayagu raalli ka ahayn. waxaanad ka dareemi kartaa runtii sida aan loogu bannaan bixin ninkaas oo aan loo hambalyeeynin oo aan bannaanbaxyo oo dhicin baydhabo iyo degmooyinka kale maxaa laga filan karaa ninkan ayaan weydiinayaa aqoonyahanka galab falanqeynaya barnaamijka. asalaamu calaykum b b c magacay baleeray Faysal Maxamed Bakaal oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta koonfur galbeed. runtii haddii fikrigay ku dhiibay dooda jimcaha geeka doorashadii koonfur galbeed oo muddo badan waqti qaadatay oo muddo kordhin badan la ka daray oo hata si habsame leh dhamaatay oo muuqatay mid oo gacan ku rimis oo hayti nan doorada hayti runtii dhiidi mas'uulkii oo lagu tiragalay oo dabada la koryaayna way dooraday walow ay shacabka koonfur galbeed aan ka faraxsanayna runtii haddana mayba laha dhawaaye oo mayba laha nan hilqaadi qaada leeray usiina mayba ilaahay ku toogay intiisa garab sheela gala tan kale dowladda federaalka maadaama ay maamuladii handhikati oo mayla intii faragelin lay ku wada maamulada Jubbaland iyo Puntland mayba rajay intii doorashada si sharaf leh oo mayla xalaal ah oo aan dhii doonto. dhegeystayaasha b b c da ee ra'yigooda noogu soo dhiibtay dhinaca facebooka aad iyo aad bay mahadsan yihiin. waad maqlayseen dhegeystayaasha b b c da doorashadii way dhammaatay si kastaba ku dhacdee walaac badanna waa ay muujiyeen. marxaa laga filin karaa markaasi maxaa natiijo ah oo horey loogu sii socon karaa oo in la dhayo boogihii ka dhashay doorashadaasi iyo in horey loo socdo waa maxay waajibaadka haatan hor yaalla madaxweynaha cusub ee la doortay iyo weliba baarlamanka markaasi koonfur galbeed. dr gacal ayaan u baaqayaa. aadan waa mahadsan tahay. waxaan rabaa wax yar inaan ku laabto arrintii uu ka hadlay saaxiibkay bursaliid oo ku saabsaneed faragelinta. waxaa jirtay dowladda federaalku waxay ku qasban tahay inay farageliso maamulada sababtoo ayagaa faragelinayo. haddaanay ayagu faragelin ma noqonayso mana dhici karto waddan isku hal ah inuu faragelin la'aan ahaado. maamulkan maamulkii ka horreeyey oo hogaaminayay madaxweyne Shariif Xasan waxaan ognahay 2015 intoona gaarin hal sano waqtigiisuba wuxuu calan ka suray degmada Wadajir gobolka Banaadir deegaanka ka tirsan oo liira Jazeera waa la isku dagaalay oo ciidana loo diray arrintaas. xuduudan anaga iskale iyo malaha waxaad ka tirsan yihiin gobolka Banaadir. marka uma arko ama ma dhici karto aslan dowladda federaalku iyo goboladu inaan isfaragelin maxaa yeelay dowladda goboladii ay u tahay dowlad maamuladuna dalkii ay ka taliyaan. marka faragelinta waxaa la rabaa inay ahaato mid positive ama mid wax wanaajinayso laakiin aanay ahaanin mid laakiin faragelin looma baahno haddii la yiraahdo marna ma soconayso dhowr dowladood oo dalkii ku wada nool ma soconayso. arrinta ku saabsan dib u heshiisiinta oo ka hadla saaxiibkay waxaan u arkaa waxna waa dowr ay leeyihiin odayaasha dhaqanka iyo dadka la rabo dadka Soomaaliyeed iyo gobolada dhan la rabo inay heshiyaan. waxna waa dowr laga rabo dowladda oo inay soo celiso sharcigi iyo kala dambeyntii iyo hadday dhibaato meesha ka imaanayso
inay adeegsato mararka qaar. Dr. Gacalow adoo raalliya haddii aan kaa dhex galo dabcan dastuur ayaa jiro habka ay u dhaqmayaan gobolada iyo xuduudaha iyo guddi khilaafaad ayaa jira. taasi waana waxyaaba federaalku uu la yimid oo kolley wakhti badan u baahan in gobol kasta iyo dowlad goboleed kasta in la xaliyo ama la jeexo xadkeeda. laakiin markaad fiiriso haddii maamuladii aad ku eedaysay inay iyagu faragelin ay dowladda dhexe ku hayeen, dowladdii dhexe hadday faragelin kala hor tagto sow markaasi ciddii awood laha adkaata maahan oo sharcigii halkaa laguma tumanayo. waxaan isleeyahay hadday cidu adkaanayso waxaa roon inay dowladda federaalku adkaato because ayadaa u dhexayso gobolada. laakiin gobol ka midii hadduu adkaado ama qaar ka midii ay adkaadaan ama gobolladii ay ka adkaadaan dowladdii federaalka, waa tii dadka Soomaaliyeed ay raadinayeen dowlad la'aan ayagoo gobol la haysto muddo 30 sano ku dhow. marka taasi ma noo keenayso ama nagama bixinayso in dalkii uu ka baxo kala qaybsanka iyo kala qoqobka. marka waxaa loo baahan yahay arrinta xoogga uu soo qaaday saaxiibkay, iyadana dowladda mararka qaar ayaa waxaa waajib ku noqonayso haddii amniga iyo kala dambaynta iyo sharcigu uu galo khalkhal galo ama dhibaato uu galo inay mararka qaar arrintaas xoog ku dhammayso. marka laakiin waa in mar walba sharciga la waafajiyo ayadoon sharciga laga tegayn. waxaan rabaa inaan usoo laabto su-aashaadii marka. haye maxaa laga filan karaa? anigu waxaan isleeyahay maamulkii hore u jiray koonfur galbeed wax ka weyn oo ka muhiimsan ayaa laga filan karaa maamulkan mar haddii uu taageero iyo gacanba ka haysto dowladda federaalka. waxaa laga fili karaa oo laga rabaa arrinta koowaad sida uu shalaba u sheegay madaxweynaha cusub inay u noqoto dib u heshiisiin loo sameeyo beelihii iskhilaafay iyo xoogagii siyaasadeed iyo odayaashii dhaqanka. kadibna midda ugu muhiimsan ee laga sugayo madaxweynaha waxaa weeyaan inuu u furo reer koonfur galbeed waddada muqdisho iyo isku xirta baydhabo, inuu xureeyo gobollada kale ka maqan muxuu ahay maamulkaas weli ku jiro gacanta al-shabaab. waxaa laga rabaa inuu horumar iyo mashaariic u keeno gobolka shaqala'aanta iyo dhibaatada ka jirto. waxaan ognahay gobolkaas inuu yahay gobolka ugu muhiimsan Soomaaliya, ugu dadka badan, ugu horumarka yar, ugu nabadda jecel, haddana ugu amniga daran. shaqo badanaa sugaysa. Dr. Gacal aad baa umahadsan tahay. Dr. Bursaliid waad maqlaysay Dr. Gacal wuxuu yidhi haddii cid adkaanayso dowladdu inay adkaata ayay tahay. maxaa ku jaban haddii dowladda kumeel gaarka dowladda federaalka aan dhehe Soomaaliya iyadu ay markaasi adkaato sida Dr. Gacalba u dhigay horumarka iyo barwaaqada uu Dr. Gacal sheegayse ma isleedahay waa la gaari karayaa? aadanow aniga horta waxaan ahay jamhuuri baan ahay. marka laga yimaado shareecada wax ka sokeeya oo kale oo iga gadmo aan jamhuuriyadda ahayn male. marka haddii la helaya in xukuumadda federaalka hadda muqdisho noo joogtaa inay min raas kamboni ilaa raas casayr ilaa zaylac ay gacanta ku qabato waxaan caawa ka jeclaan lahaa ma lahan. laakiin laba arrimoodba waa kow, horta hadda waxaan fahmi karaa tan iyo dhammaadkii 40meeyadii sababta qabaa'ilada Soomaalida ee labada webi dhexdooda degaa ay federaal weligood u rabi jireen. waxaad moodaa dagaalkoodu inuu ahaa faragelin mar walba ay muqdisho iyo madaxda qaranka ay ku hayn jireen, qaybtii ay ku lahaayeen qaybtoodii qaran inay waayi jireen, mar kastana sidan loo walaaqan jiray. si marka loo dhigo waxaan hubaa ninkii meesha ka tegey iyo ninka hadda yimid marka la isbarbar dhigo inaanay kii hore u xiisi doonin. kana ay shaqo badan u taalo oo ay ka mid tahay inuu laanqoyan dadka u fidiyo, dib u heshiisiin dhaba inuu sameeyo. shaqo badanoo u taalaana midda u horreysa inay tahay in bal dhaawacyadii dadka gaaray iyo boogihii iyo dhayidoodii iyo wixii la mida. intaas marka aan ka imaado xukuumadda waxaad moodaa inay xoogaxyar ka badbadisay colaaddii loogu qaaday maamul goboleedyada shirkoodii qaska ah ee kala hore Kismaayo ka dhacay ay golaha ku samaysteen. heer ay gaareen inay jiritaankii jamhuuriyadda shaki geliyeen oo ay yidhaahdeen 90% annagaa dalka ka talina, khayraadkoo dhanna annaga ahayna, sidaas daraaddeed umaba baahnin. heer ay ku sigteen inay garoowe shir ku qabtaan. markaad fiiriso sida aanay dastuuriyan xataa si bani aadamnimo ah oo xisaabtan loo dhexdhexaysi inaynay u hadlaynin, mararka qaarkood waxaad ku siganaysaa inaa indhaha ka qabsatid khaladaadka dowladda. laakiin labadooda waxaad moodaa khaladaad qidadeed oo taagta kale inay mid istaraatiijiyadeed ku saxayaan. hadda marka waxaad moodaa fariinta ugu muhiimsan oo la rabo cid kasta oo Soomaaliyeed inay gaarto
inay tahay muhiimadda ay dib u heshiisiin dhaba oo siyaasadeed in la galo inay tahay hadda in la joogo in xukuumadda looga fadhiya inay gogol deg deg u fidiso mucaaradkana ay wadahadal dhaba la gasho maamulada dhimanna ay faraha ka qaado qodob muhiima ayaa jiro oo dhinaca ammaanka ah oo goboladaasi aanay isku gudbi karin wadada isku dhexaysa magaalada muqdisho iyo baydhabana ay xiran tahay marka aad fiiriso khilaafaadka ka jira halkaasi maxaad is leedahay qodobkaasi ammaanka waa lagu gaari karayaa mar haddii hogaamiye cusub oo ay dowladdu taageersan tahay ama aanay ka didaynin uu soo baxay si kastoo hadalka loo dhigo waxaad mooddaa in amniga suurtagalnimada ah inuu ka soo raayo ay aad u badan tahay si kastabase wax badan waxay ku xirnaan doonaan saan aadan oo aaminsanahay qaabka ay xukuumadda u soo bandhigto qorshaheedii siyaasad ee amni iyo nooca kaalmo ee amisom un-ta iyo guud ahaanba beesha caalamka laga helo laakiin wax walba waxay ka tolnaan doonaan sida xukuumadda ay u wajahdo iyo nooca soo dhoweyn ee dadka reer baydhabo guud ahaan maamulka koonfur galbeed ay siiyaan hogaamiyahooda cusub waa gartay aadayd ba mahadsantihiin doctor bursaliid iyo doctor gacal ayaa dooda ka qayb qaadanaya barnaamijkuna waa dooda jimcaha oo aanu ku eegeyno dowlad goboleedka koonfur galbeed doorashadii ka dhacday ee uu ku soo baxay madaxweynaha cusub cabdicasiis lafta gareen saacadda stuudio haatan waxay tilmaamaysaa 5:00 iyo barkii galabnimo ayay tilmaamaysaa barnaamijka qaybihiisa kale waan usii geli doonaa waxaa kaloo aan rajayn doonaa in markaasi uu nagu soo biiro doctor khayre oo isagu dhinaca qaanuunka markaasi kaga qayb qaadan doona halkani waa London وهاجا برنامجku waa dooda jimcaha dabcan doorashadii koonfur galbeed waa ay dhamaatay madaxweyne cusub ayaa soo baxay isaga ayaa laga sugaya marka in khilaafaadkii ka dhashay sidii uu ku midayn lahaa iyo sidii hore loogu socon lahaa asaga ayaa laga sugayaa iyo markaasi dabcan dowladda uu soo dhisi doono iyo xildhibaanada isaga doortay iyo shacabka oo loo baahan yahay inay gacan ka geystaan bal waxaa dadku isweydiinayaan markaasi doorashooyin kale ayaa soo socda oo dalka ka dhacaya oo gobolada Puntland iyo Jubbaland marka aad fiirisaan natiijadii ka soo baxday koonfur galbeed iyo sidii loo maareeyay maxaad isleedahay saameyn noocee ah ayay ku yeelan karaan natiijadaas ay ku yeelan kartaa doorashooyinka ka dhici doona goboladaasi Puntland iyo Jubbaland Dr. Gacal dabcan aad bay isu saameynayaan oo dalka Soomaaliya waa dal sidiisaba yar dadka Soomaaliyeedna waa dad isku wada xiran oo noloshooda iyo saameynteeda oo isku wada xiran tahay marka siyaasad ahaan iyo nolol ahaanba way isku wada xiran yihiin dadka Soomaaliyeed qodobka labaadna waxa weeyaan gobolada markii ay soo dhawaato doorashadoodu ayay dagaal midaysan waxay ku wada qaadeen dowladda federaalka mar hadday ku qaadeen marka waxaa muuqato in dowladda federaalka hadday mar ku guulaysatay koonfur galbeed inta kalena inay qasab tahay ama dadka laftirkoodu ay ku qasbayaan cidda ka soo baxayso inay tahay cid raacsan ama la shaqaynayso dowladda federaalka waxaa naga dhammaadaan dhihi karnaa halkaas waqtigii la dhihi jiray dadka dowladda ayaan idinka difaacaynaa iyo dowladda ayaa wax idinka qaadanayso iyo dowladda wax dheeraada qaadanayso marka waddadii hadda ka bilaabatay koonfur galbeed waa dhici kartaa qaarkood way ka duwan yihiin maxaa yeelay Puntland iyo way kala duwan yihiin koonfur galbeed laakiin ujeedooyinka iyo waxaan isleeyahay mabaadi'da lagu dooranayo ama uu ku soo baxay Cabdicasiis ayuu ku soo bixi doonaa madaxweyne kastoo gobolada ka imaan doona waa dhici kartaa faragelinta dowladdu laakiin qaybna ka muuqato masleedahay Dr. Gacal galaangalka ay dowladdu u lahayd koonfur galbeed iyo saameynta ay ku yeelatay suurtagalnimadaasi way u yeelan kartaa goboladaasi mise way ku adkaan kartaa maadaama marka la fiiriyo ciidamo amisona aanay ka joogin ciidamo dowladda dhexe aanay joogin marka habka ay u martay koonfur galbeed iyo habka loo mari karo goboladaasi soomaha kuwa kala duwan hadda waxaan ogaanay muxuu ahay ciidanka iyo arrimaha amniga iyo wixii la saabsan waa waxyaabo kaabiyaal oo laga yaabo dowladda inay kabeen laakiin arrinta guud ujeedada guud ee ahayd in dowladda federaalka iyo goboladu ay isku xirmaan iskuma khilaafsana arrintaas laakiin dhinaca farsamada way isku khilaafi karaan laakiin dadka laftirkiisa waxay hadda u heelan yihiin ama shacabka gobolada inay doortaan cid horumarinaysa lana shaqaynaysa dowladda federaalka halka ay markii hore ka ahayd
cid dhahayso ama u ballan qaadayso inay howlo kale u qabanayaan ama adduun kale ku xirayaan ama beesha caalamka ku xirayaan. marka hadda ololaha waxaan isleeyahay wuxuu ku qasban yahay musharax kasta oo raba inuu ku guulaysto doorashada inuu ku ololeeyo inuu la shaqaynayo gobolkaasna ku xirayo dowladda federaalka. marka taas kuma kala duwana, laakiin arrimaha farsamooyinka way ku kala duwanaan karaan. iyo markaad fiiriso musharaxiinta u sharaxan gaar ahaan puntland oo doorashadooda ay soo horeyso, ma jiraan musharaxiin isleeyahay waxay u janjeeraan dhinaca dowladda federaalka oo markaasi way u dhunduleelaan arrimaha ay wadato? beryihii dambe musharaxiinta aan maqlaynay oo dadka u khudbaynayay waxaa hadalkooda ugu weyneed ama ugu muhiimsaneed musharax kasta inuu leeyahay waxaan la shaqaynayaa dowladda federaalka, waxaan dhisayaa dowladda federaalka. puntland waxay ka qayb qaadanaysaa hooyo u tahay dowladda federaalka markii laga reebo madaxweynaha hadda joogo. inta kaloo dhan waxay ku kaambeyn garaynayeen inay dowladda la shaqaynayaan. marka waxay la tahay haddii intuba ay dowladdii la shaqaynayaan uma baahna dowladdu marka inay shaksi gaara iyo hebel gaara ay ka qaadato. laakiin xaaladda koonfur galbeed waxaa laga yaabaa inay ka duwaneed oy ahayd xaalad gaar ah. waayahay doctor bursaliid waad maqlaysay doctor gacal fasiraadda uu bixiyey, bal markaad fiiriso dabeecadaha iyo siday u kala duwan yihiin koonfur galbeed iyo puntland doorashooyinka ka dhacaya iyo saamaynta ka dhalatay kuwii ka dhacay koonfur galbeed, ma isleedahay wax saameyna way ku yeelan kartaa ama dowladda federaalka ay markaasi galaangalka ay u lahayd koonfur galbeed mid lamida ayay u yeelan kartaa puntland? aadan waxaad moodaa inay si u kala duwan yihiin labada maamul. reer garoowe aan dhaho ama guud ahaanba reer punt waxaad moodaa inay yihiin dad xadaariyiina oo dadka soomaalida ilaa 8 sano camal si uga yara horreeyo maamul dhistay ka hor shirkii carta 2 sano. ma jiro joogitaan ciidamo ajaanib ah oo muqdisho ama amisom ha noqdeen ama UN ama qolo kale ha noqdeen oo toos uga amar qaadan kara. taariikh ahaanna waxaad moodaa si un hogaamiyaha maamulka garoowe in noocun cadaawada iyo isbarabixin ay kala dhexaysay madaxda sare gaar ahaan madaxtooyo muqdisho tan iyo heshiiskii kampaala ee 2011. sidaas daraaddeed nooc xasaasiyada baa jirta oo khasbi doonta saan aaminsanahay inaanay xataa xukuumadda dhexe ku degdegin in noocuu raba ha noqday faragelina in garoowe lala aado. arrinta kismaayo inay ka yara duwan tahay baad moodaa, leanna waxaa meesha jooga ciidamo amisom, waxaa jooga etoobiyaan amisom iyo kuwa ka madax bannaan sida la tuhunsanya walow aan xaqiiqo lahaynin. waxaad moodaa in casharadii baydhabo laga bartay si loo yara dabakhi doono oo lasii qurxin doono. khasab waxaa noqon doonta hogaamiyahoodaas axmedooba inuu meesha ka bixi doono, laakiin uunusan si fudud ku bixi doonin. xukuumaddan ay isku dayi doonto inay wax badan ka barato casharkii baydhabo. si kastaba waxaan u malaynaya inay kismaayo iyo garoowe iyo muqdisho iyo maamulada kale wax u dhiman yihiin oo doorashooyinka 2020 xataa kadib noqon doonaba inay khasbaysa in soomaalida ay u baahan yihiin in markan si jamhuuri ah loo fakaro, dalkiina laga wada fakaree koox gaaroo meel fadhida dantooda iyo nin meel iska sii haysto keligii dhuuqaya dantiisa aan la fiirinin ee si guud jamhuuriyadda looda fiiriya in xalka inuu ku jiraad moodaa. waa tahay aan ku soo laabto markan koonfur galbeed iyo doorashooyinkii dabcan musharaxii lahaa tartan adag ayuu la geli doonaa madaxweynaha cusub ee haatan la doortay lafta gareen mukhtaar roobow waa uu xiran yahay. dabcan dooda ha ka dhalato qaabkii loo maray xarigiisa, maxaad is leedihiin mustaqbalkiisa uu ku dumeyn karaa? ma sidaas ayuu xirnaanaya mase mar haddii haatan doorashadii ay dhammaatay xal iyo safgarad ayaa laga gaari karaa ayaa is leedihiin doctor gacal? mukhtaar roobow dabcan arrinta ku saabsan arrintiisa waa laysku khilaafsanay soomaalidu. in badan oo ka mid ihina waxay u arkayeen inaysan sax ahayn mukhtaar roobow hadda inuu madaxtinimo u tartamo. in badan oo soomaalida ka midana waxay u arkayeen inay sax tahay inuu u tartamo. laakiin hadda arrintii waxaad moodaa inay dowladda federaalku soo gebagabaysay, ama ciidankeeda ha adeegsato ama ciidan kale ha adeegsatee. asaga hadda ma ahan kow, rag badan oo waxaa jiray ka soo baxay shabaab ama ka yimid. dowladduna ay hadda iyo mar horeba ay waddo marsiisay. marka waddooyinkaas ayuu marayaa uun. saan isleeyahay kama duwanaan doono raggii hore oo ka imaan jiray shabaab. marka tan hadda saamayn ma ku yeelan doontaa? dabcan saamaynay ku yeelan doontaa asaga, taageerayaashiisa iyo dadka ka soo horjeeday mucaaradsanba. mustaqbalkiisa waxay ku yeelan doontaa saamaynay ku yeelan doontaa. laakiin
dowladda federaalka waa caddahay waddada ay marsiinayso markii horena waxaa la diiday waxay ahayd waqtigan maaha waqtigii uu tartami lahay mukhtaar weli waxbaa dhiman waxaas dhimanna dad badan ayaa dareemaya ma aha dowladda kaliya inay ka dhiman yihiin marka haddana waxaan isleeyahay waddadaa unbaa la marsiin doonaa waddo kale ma jirto waayahay doctor gacal waad mahadsan tahay waxaa nagu soo biiray doctor axmed cali khayre oo aan qodobkaasi la sugayey doctor khayre aad iyo aad baad umahadsan tahay waa ka xumahay arrimaha xagga ammaanka ah ee ka jira agaarka daartan broadcasting house in ay ku xanibeen laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan haatan nagu soo biirtay doodda waxay ku saabsaneed koonfur galbeed waxaan haatan maraynay xarigga musharax robow oo markaasi u sharaxnaa doorashada koonfur galbeed oo dowladda federaalka ahi ay qabatay oo ay tiri shuruudihii ma aanu soo buuxinin marka aad fiiriso qawaaniinta dalka iyo kuwa caalamiga ahba qaabka loo maray dastuurka dalka markaad fiiriso qaabka loo maray xariggaasi robow ma isleedahay waddadii saxda aheed ayaa loo maray waa mahadsan tahay saalimiin khiyaarta kaloo dooda ku jirtana waan salaamaya ani waxaan isleeyahay mukhtaar robow wuxuu ka tirsanaa jiray ururka al-shabaab heshiis ayuu ku yimid oo dowladda la galay aniga inkastoon dareensanahay macluumaadka la hayaan uu sheegayo inuu mar hore inuu yimid rabay laakiin dowlado waaweyn oo awoodle ay diidanayeen markii dambana iyagu ogolaadeen haddana aan shaki ka qabo in xarigiisa iyo in arrin soomaalidu u gacmo banaan tahay aysa ahayn haddaa intaas ka gudboon u imaado sharcinimada qabashadiisa ani waxaan isleeyahay markii hore u imaanayay dowladda iyo dadkii kaloo la hadlayay gar ayay u heli kareen iyo sharciyad inay shuruudo ku xiraan oo yidhaahdaan 2 sano siyaasadda ma geli kartid sidaan baa lagaa rabaa tan baa kugu xiran laakiin markii oo magaalada lagu sii daayay oo uu issharaxay oo uu tegay gobolkaas aniga waxay ila tahay 2 arrinba inaysan sax ahayn oo markii siyaasadda soomaaliya iyo qaabka la isku soo jijiidayo la fiiriyo iyo markii qawaaniinta la fiiriyaba dastuurku wuxuu si cad u leeyahay qofka muwaadinka wuxuu siinaa inuu siyaasadana geli karo tartan geli karo lama dooran karo soomaaliyana sidaan ognahay ilaa iyo 79 tacadiye ayaa ka dhacay 100,000 oo qof ku naf waayo ku dhaawacantay soomaalidu mana ka wada hadlin mana ka xisaabtamin tusaale ahaan oo kale oo ilaa hadda inta la isku yimid arrin yar oo iska afgobaadsi ah oo ah xaaladale aan kasoo qaadna ma ahaan soomaalidu ma wada hadlin marka maadaama aan la wada hadlin qof hadda gooni far loogu fiiqi karo inuu jisan jirana umaleynaa maamul goboleedyada dhan iyo dalka qaybihiisa kala duwan iyo dowladday ku jiraan dad oo la tuhunsan yahay in arrimahaas qayb ka ahaayeen marka asaga hadda in gooni uun farta loogu fiiqdo aniga sax ilama aha tan kalena waxay tahay ciidamada oo etoobiyaanka loo adeegsaday oo dadka shacabka ku xasuuqa baydhabo macnaha qiil iyo looma heli karo waayahay doctor khayre markaad fiiriso dastuurka ee dalka marka muwaadin lasoo xirayo qaabka iyo wadiiqada loo marayo maxay tilmaamaysaa qofka marka hore waa in la eedeeyo oo inta baaritaan la sameeyo eedeyn lasoo gudbiyo maxkamad ay xarigiisa go-aamiso waayo macnaha la iskama qaban karo aniga mid waan dareemi karaa siyaasad ahaan oo dowladdu in ay rabtay in maamul goboleedyada dad iyaga xoogaa u dhaga nugul inay keensadaan aniga waxay ilaa taas xaqay u leeyihiin oo adduunyada dhan waa dhacdaa oo maraykankaas oo dowlad weyna maamul goboleed macnaha guddoomiyayaasha gobolka iyo waa loo kala tartamaa laakiin waa in lagu sameeyo oo lagu raadiyo qaab dastuurka ogol yahay oo nidaamka sharcigu ogol yahay oo keeni kara nidaamka dowladnimada oon raadinaynay inuu yimaado laakiin haddii tusaale ahaan nidaam ama laaluush ama dad in lagu dilo ay tahay waa nidaam dastuur ahaan aniga ay ila tahay inaynan sax aynan noqon karin waaya doctor khayre anagu ma hayno in dowladdu ay wax laaluusha ku bixisay koonfur galbeed iyo doorashooyinka laakiin markaad fiiriso su-aashaasi horeyna waa looga dooday intaadan nagu soo biirin doorka dastuuriyan dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku leedahay doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada muxuu ku qeexayaa dastuurka soomaaliya dastuurka horta soomaaliya sidii aan ognahay qodobo badan oo waxaa jira aan si fiican u cadayn oo iska wada hor imaanaya doorashada oo si toosa doorashooyinka ugama hadlaayo laakiin maamul goboleedyada waxaa loo madax baneeyey arrimahooda oo maxaa la yidhaahdaa gudaha inay iyaga doorashooyinkooda qabsadaan inay nidaamkooda samaystaan guddiga doorashada oo heer hoose ay samaystaan nidaamkooda iyagaa u madax banaan oo in laga farageliyo nidaamka sharciga oo soomaaliya qaabka hadda aan
qaadanay oo federaalka ma ogola laakiin sida aan la soconno nidaamkii dastuurka hadeertaan inta badan oo hadda keliyana ma ahan oo dawladdan keliya ma ahan ilaa iyo hadda 10 sano u dambeysay nidaam dastuur iyo wax raacaya ma badnayn oo macnaha waa un siyaasad waqti gaaban ayaa inta badan lagu socdaa oo koox walba hadda timaada macnaha oo dawladda hadda joogta kuwii ka horreeyay waxay culays ka saaraan oo ay waqtiga ku lumiyaan inay soo noqdaan in maxaa la dhihi jiray ay saameeyaan siyaasadda marka hadhowta ee waqtigu dhamaadana ma dhacdo oo qaabkaas ma u timaado ana marka waxaan isleeyahay haddii la rabo soomaaliya dawlad xoog laha u dhisnaa jirtay dawladdii way naga burburtay maca sababayna u burburtay masiibo dabiiciya kuma dhicin sidaan idhaahdo ani marka waxay ila tahay haddaan rabno dawlad xoog leh inay noo dhisanto nidaamka oo sharcigu sarreeyo inaan qaadano waayo macnaha rule of lawga la sameeyo taas macnaheedu waxay tahay in awoodda oo dawladda iyo qaybaha kala duwan oo maamulada in la xadido oo sharcigu xadido awoodda waxaa isticmaali karta waxaad isticmaali karin ay noqoto nidaam oo sharcigu u ogol yahay waaya laakiin doctor khayrow dawladdu in awooddeeda ay ku baahiso dowlad goboleedyada oo xafiisyo ay ku yeelato ay ciidamo ku yeelato oo ay galaangal badan ku yeelato oo ay mushaar geyso oo ay dhaqaalo geyso talana ay ku yeelato sow maaha mid ka mid a dastuurka federaaleynta laftirkiisa horta annaga sidaan ognahay soomaalidu horta dastuur federaalka laguma heshiin oo soomaalidu intay isku timid ma heshiinin nidaam qaab sibiquhu hogaamiye kooxeedyadii joogay meesha Nairobi ayaa go-aankaas gaaray laakiin haatan isagaa lagu dhaqmaa isagaa lagu dhaqmaayo wixii sharciga jiray waa lagu dhaqmaa kumeel gaara loogu dhaqmaa laakiin dastuurka hadda dib u habeynaa ku socota codaana loo qaadaa dadka Soomaaliyeed waxay xaq u yeelanayaan inay diidi karaan ani marka waxaan ka wadaa adduunka sida dastuurka looga dhaqmo federaalka iyo annaga qaabka u haysano waa kala duwanta maamul goboleed waxay u haystaan iyagu inay meeshay joogaan ay ka taliyaan oo qofna la hadli karin dawladdii aan u jarnay xiriirka maqlaysa laakiin adduunka waxaa la rabaa laba heer oo dawladeed tusaale ahaan ciidamada qaranka oo kale inay national noqdaan oo dawladda dhexe ay ka awood badan tahay maamul goboleedyada iyaguna booliskooda arrimahooda ay ilaashadaan haddii tusaale ahaan dastuurka lagu xadgudbo oo kale dawladda dhexe in awood u yeelan karta inay farageliso oo ay meeshii nidaam iyadoo sharcigii maraya wax uga qabato adduunyada dhanna waa sidaas laakiin annaga hadda sidaan xaalkaan hadda ku jirno awood oo dawladda dhexe leedahay ma jirto oo dawladdii dhexe awood ma lahan awood inay yeelatana macnaa waxay ku xiran tahay hadda maadaama aan awood aysan dhaxlin oo dawladda si u burburtay ayna system dawladeed aysan si fiican u hirgelin ciidamo iyo waxbaa la sameeyey laakiin waxaa loo baahan yahay in consensus qaab wax laisla ogol yahay in wax lagu dhiso in nidaamka hadda ayaan dhaweed lagu heshiiyo ahaa ciidamo qaran in la wada dhisto maamul goboleedyada laga keeno macnaa nidaamkaas in aniga waxay ila ahayd in hadda tusaale ahaan maamul goboleedyada aan cadow gooniya laga dhigan laakiin in inta la wado oo laysku wado si loo gaaro in dawladdii dhexe iyo nidaamkii garsoorka iyo hay-adihii dawladda oo heerka qaran ahaa ay xoogeystaan oo sharciga la marsiiyo maamul goboleedyada markaas waxaa ku xadidi kartaa nidaamka sharciga iyo dastuurka wuxuu ogol yahay laakiin hadda waxaan moodaa haddii tusaale ahaan dawladdii dhexe ayna sharcigii raacaynin dowlad goboleedyadiina ayna sharciga raacaynin macnaa qof walba meeshuu joogo sameynaa nidaamkaas dawladnimo laguma gaarayo waayahay dabcan waan kusoo laaban doonaa doctor gacal iyo doctor bursaliid qodob kale ayaan u geli doonaa oo aan isleenahay waxaaba laga yaabaa inuu xiriir la lahaa doorashooyinkii ka dhacay ee koonfur galbeed qodobkaas oo ah qodob qalqal gelin lahaa dalka oo ah mooshinkii baarlamaanka ee madaxweynaha xilka lagaga qaadi lahaa oo laga noqday sida uu qoraal ku soo saaray gudoomiye mursal doctor axmed haddii aad sii wadato maxaad isleedahay way isbedeleen oo aad ku fasiri kartaa mooshinka horta aniga waxay ila tahay sida dastuurku qabo oo qodobka 92 qabo mooshin waa la ogol yahay macnaha xildhibaanada hadday soo buuxiyaan shuruudaha oo laga rabo oo tirada laga rabo iyo nidaamkii soo maraan mooshin waa la ogol yahay waa nidaam aniga ay ila tahay nidaam dimuqraadiyadda oo haddii nidaamka sharciga iyo dastuurka la raaco waxay ka hortegaysaa inaan gacan iyo laga hadlin macnaha oo nidaamkii sharciyadii iyo garsoorkii iyo qaabkaas qaab nabdaysan nidaamkii dawliga lagu wado oo la iskaga hor yimaado aniga waxay ila tahay qaabkii tusaale ahaan oo dawladda u wajahday oo mudaharaadii ciyaal lasoo kiciyey iyo qaylada iyo dadkii macnaa ma loo baahnaynba
ma u malaynayo hadda kooxda keentay mooshinka inay heli kareen tiradii looga baahnaa inay madaxweynaha ridaan macnaa caqliga saxda marka wuxuu ahaa iyadoo degenaanshaha iyo nidaamka la ilaalinayo in la yidhaahdo nidaamkii soo waafajiya haddii nidaamka waafajiyaan cod hala qaado macnaa codna sida hadda muuqata inaysan heli karin u badan tahay sheekaduna meesha ku xirmi lahayd laakiin siyaasado kale iyo arrimo kale dawladdiina abuurtay mucaaradkiina iyagiina sidii qayrada u wada ani waxay ila tahay marka nidaamka oo dawliga si noo hirgelo hadalkaa markii hore bilaa waxay ahayd nidaamyada qaabka nabdoon wax loogu xallin karo wadamada soomaaliya kasoo baxaya khilaafka oo sida soomaaliya oo kale waa in la helo nidaam qaab nabdoon wax loogu xallin karo sida maxkamadihii oo si fiican u shaqeeya garsoorkii oo si fiican u hirgala haddana waxaa moodaa dawladdan keliya maahay macal dawladihii ka horreeyey nidaamka garsoorka oo la madax banaynayo oo la dhisaayo inaan shaqo macano leh laga qaban oo moodidba in layska ilaalinayo hay-ad ka madax banaan inay timaado oo la rabo wixii oo dhan in la hoos keeno hay-adan oo fulinta aniga taas waxay ila tahay inaan ka durugno oon dhinacaas kala aadno laakiin mooshinkii hadda xaqay ulahayn inay keenaan macnaha inay ka noqdaan xaqay uleeyihiin laakiin aniga waxay ila tahay in waa tahay doctor khayre waa kugu soo laaban doonaa qadka igu jira doctor bursaliid waad maqlaysay fasiraadda uu bixiyey doctor khayre dabcan doorashadii koonfur galbeed way dhammaatay xiisadii guddoonka baarlamaankana waa ay dhammaatay mar haddii mooshinkii laga laftay laakiin marka aad fiiriso nidaam nabdoon oo soomaaliya ay hesho oo horey loogu socdo sidee lagu heli karaa ay kula tahay aadan waxaad moodaa horta in hoos loo wada hadlay oo noocun wadaxaajooda siyaasadeed lala galay guddoomiye mursal islana gartay inuu dib u helo xurmadiisii guddoomiye oo ahayd wax badanoo uu tabanayay hadday ahaan lahayd in lagala tashado wax baarlamaanka la raba in la marsado maamul goboleedada gaar ahaan gobolka asaga uu ka soo jeedo marka madaxweynaha uu baxayo in warqad xil wareejina la siiyo guddoomiyii madaxweynenimadii kumeel gaarka ahayd loo aqoonsado marka qaabka uu mooshinka hadda ka noqoshadiisii ku keenay oo uu sharciga u raacay shalayba uu u raaci karay waxaad moodaa marka maadaama ayagoo aanay heshiis ahayn shalay inuu ka maagay sidii la rabay inuu wax u mariyo inuu mariyey cadaadis siyaasadeedoo badanna inuu jiray laga yaabo inuu dibadda ahaa laakiin xoog uu ahaa kudladan aadka u qaska badnayd oo waayadanba aad moodid baarlamaanka inay eeg laftooda ka dhex shaqaysanayeen ilaa la helo wada hadal siyaasadeed oo loo dhanyo xukuumadda ay la gasho dadka ka soo horjeedo fakar ahaanna way adkaan doontaa ayaga laftooda in la muquuniyo si kastaba jawaabta kooban ee su-aashaada markaan usoo noqdo waxaa weeyaan waxaad moodaa hogaamiyaasha soomaalida inay u baahan yihin inay isxusuusiyaan in koox walba ay iman jirtay meeshana ka tegi jirtay waxay u yimaadeen inay ahayd inay annaga noo khaadimaan xafiiska madaxweynaha laga rabo inuu ajando qaran iyo hiigsi qaran la yimaado kan ra-iisul wasaaraha inuu adeeg noola yimaado kan baarlamaanka agaasinkiisa indha ku hayn dowlad iyo matalaad iyo sharci dejin iyo dhammaantooda wada jira in ajandihii qaran laga wada shaqeeyo marka wax ka habboon inay danta isla gartaan calal aqal midda ugu yarna ay tahay inay khaadimin yihiin ayna tegi doonaan ay xusuustaan waad moodaa inay tahay fariinta ugu muhiimsan galabta waayahay doctor bursid waa masan tahay doctor gacal markaad fiiriso khilaafka u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo weliba siyaasiyiinta iyagu mucaarasan dowladda door intee la-eg ayuu ku leeyahay amni darrada dalka ka jirta iyo inuu ishortaago howlo fara badan oo in la qabta ay ahayd waa mahadsantahay aadan waxaan soo dhoweyneynaa doctor axmed iyo sharaxa uu ka bixiyey arrimaha dastuurka iyo sharciga noo yaallo hadda arrinta laakiin waxay kaga duwan tahay hadda dowladdu ku shaqaynayso ama ay socoto waa sax inuu qofku xaq leeyahay muwaadinnimo in la doorto waxna uu doorto laakiin xaqaaga hadda ma adeegsan kartid oo waxaa jirto cillad aadan ku adeegsan karin way ku jirtaa sharciga iyo dastuurkaba haddii qofku ay cillad timaado ama xukun ama dembi uu galay ama in xaqiisa uu ku weyn karo laakiin dembi lagu caddeeyey ma jirto marka cilladaasi aad iftiiminayso bal noo sharax dembigii intii lagu caddayn lahay ama lagu weyn lahay lama gaarin waqtigii waxaa la yidhi broseskii ama waxaa dhiman habraaci marka habraacu inta uu socdo qofka ma sheegan kariyo ma dhihi kariyo laakiin doctor gacalow markaad fiiriso haddaan kaa dhex galo adoo raalliya markaad fiiriso markii robow uu yimid si xorriyada ayuu ku baxay waxa uu aaday gobolada koonfur galbeed waxa uu tegay jubbaland weliba waxaa la sheegaa in xataa laga yaabay in uu dalka dibaddiisa caafimaad u tegey dowladdii baa soo dhoweysay marka haddii markii hore wax xayiraada aan lagu rogin xayiraadda haatan la saarayo soo su-aal kama dhalan karto intaasoo dhan waxay ahayd sida ay dowladdu sheegtay brosesaa socday oo la raba in la gaarsiiyo fikraddiisii ma ka tanaasulay mase weli waa haystaa
dowladda federaalkana ma aqoonsan yahay iyo dastuurka hadda noo yaal mase ma aqoonsano broseeskii intuu socday ayay arrintaanu timiday markii dambena amar diiddo oo xagga dowladda ayuu sameeyey dowladduna waxay ku sababaysay inuu ka dhalan karo arrimo amni darro iyo arrimo dhibaato ay ka dhalan karto doorashadiisa iyo ka qaybgalka doorashada qodobka labaad oo dastuurka wax akhbaar ama wax xoga oo aad nala wadaagi karto oo inaanu dastuurka aqoonsan inaanu ka tanasulin fikirkii al-shabaab oo aad nala wadaagi kartaa ma jiraa maanta taas adinkaa meediyaha iyo u joogtiinoo laydinka rabaa haddii aad haysiin wax rikoora in la sheego laakiin dowladdu dad badan ayaa u haystay mukhtaar roobow dembiye oo ka galay ama muxuu ahay dad la laayay arrintaas marka ka garaabid ma aynan maqlin shacabkuna ma maqlin meediyuhuna kama soo xigan in arrinta uu ka tanaasulay ama uu aqoonsaday dowladda federaalka uu ka tanaasulay dowladdii horey raadi jireen asaga iyo kooxdu ka tirsanaay marka taas ayaa keentay ayaan isleeyahay arrinta qodobka labaadoon rabo doctor axmed inaan ku taageero waxa weeyaan tiirarka dowladda waxaa ka mid a ama waajibaadka uu dastuurku siinayo xuduudaha dalkoo dhan inay hayso awood uma laha iyo weli ma gaarin iyo waa arrin kale laakiin cid kastoo ka hor timaada dowladdu inay hayso laaban doona waqtiga gaabsan marka aad baa maasan tahay Dr. Bursalid laga sameyn karaa Dr. Bursalid aan siinaya marka aba ku darsado haye adoo soo koobayo waqtiga aad u gaaban arrinta mooshinka lagama fiirinayo arrimo sharci maba gaarinba asalkiisuna wuxuu ahay siyaasad kadibna inuu madaxweynuhu isdifaacaba lama gaarsiine baarlamaankii isku qabsaday dhexdooduna ku buray marka sharci ma ahayn markii hore ama sharciyad laguma keenine arrimo siyaasadeed lagu keenay waxaana cadeynayay dadkii yiri waa nagala been abuuray oo miiskan uga buuxsaday Dr. Gacal aad baa maasan tahay Dr. Bursalid qodobka Roobow hadaayuna wad ka hadashay maxaad ku dari kartaa waa fursad horta Roobow arrintiisa in la siyaasadeeyo baad moodaa dib u heshiisiinna uu muhiim yahay Roobow sibuu hantina u yahay fursadna u yahay fursad wuxuu u yahay in dembi loo raacan karo isla xisaabtankana asaga lagu bilaabi karo rag badan oo hadda shaqo noo hayana laftigooda loo yeeri karo ay Soomaalidu bilaabi karto in isla xisaabtanto dhinaca kale waxa looga faa'iideysan karaa inuu hanti qaran noo noqdo oo la iscafiyo qarannimo lagu raadiyo asagana loo adeegsado inuu hay'adaha amniga la shaqeeyo xukuumadana wax badan ka kabo marka waxaad moodaa in siyaasadeyntiisa doorashada dantii laga lahaa darteed aad ay ula tagtay xukuumadda oo loo baahan in dib loo soo noqdo fakar istiraatiijiyadeed oo heer qaranna la geliyo waayahay ugu dambeyntii Dr. Khayre markaad fiiriso arrimaha dhacaya waxaa looga baaqsan karaa bay dadka qaarkiis aaminsan yihiin in shaqooyin fara badan la qabto oo xagga garsoorkii iyo hay'adihii dowladda tiirarka u ahaa in la dhiso marka sidaa is leedahay arrimahaasi waa looga hortegi karaa inay soo laalaabtaan waa maasan saalim aniga kelmad yar waxaan ka dhihi lahaa Dr. Gacal arrintii uu hadda ka dhawaajinay waqti badan ma haysano nus daqiiqa haystaa waa ogaha aniga waxaan ka wadaa Soomaalida horta weli ma xisaabtamin hadda 3 beri ka hor ayay ahayd nin mas'uul ahaa maruu ku faanayay tacadigii Itoobiyaanku ay ka geysteen magaalada Muqdisho 10 kun lagu dilay aniga waxay leedahay hadda xisaabtanka in Soomaalidu go'aansato waa in la xisaabtamo oo hal qof kaliya hadda lagu ma fuli karo tan kale oo sida looga bixi karo arrimaha aniga waxay leedahay hay'adihii dawliga waqtigan danta gaaban oo koox walba ay danta gaaban fiirinayso inta la iska dhaafo garsoorka hay'adihii dawliga hal dhiso danta qaranka laga fakaro sida hadda oo Dr. Bursalid uu sheegay waxa aaminsan koox walba ay timaada weyna tagayaan nimanka hadda joogan sida u badan way tagayaan laakiin waxay ka tagaana muhiim ah hadda dan gaaban inta lagu saleeyo aan waxba la dhisin oo dadka hore aan loo weeyo wax ma kordhinayso marka in danta guud laga fakaro hay'adihii garsoorka waliba oo garsoorku u horeey in la dhiso hay'adihii qaranka si fiican loo dhiso jeclaysiga iyo nidaamkii dawladii hore naga burburiyo la iska dhaafo